dugsiga Al-Jazeera International College ayaa ku dhawaad 9 arday munaasabad ugu qabtay Hotel New Burco ee magaalada Burco. Ardaydan oo dhameysatay kulliyadaha kala duwan oo ay ka mid yihiin caafimaadka, saxaafadda iyo luqadaha Ingiriisiga ayaa muddo 2 sano ah ku dhow wax ka soo baranayay dugsiga Al-Jazeera. ugu horeynba waxa ka warbixiyay marxaladihii uu dugsigu soo maray maamulaha dugsiga Cabduqaadir Xuseen Koronto. ardayda saxaafadda, ardayda wax weey luqadaha, ardayda wax weey caafimaadka. dugsiga Al-Jazeera College waa dugsi muddo 5 sano ah imika soo shaqaynayay kaasoo 5 sano wax weey soo saarayay ardayda gobolka Togdheer qaybaha luqadaha, saxaafadda iyo guud ahaan caafimaadka ama wixii aqoon la yiraahdo oo inta dugsigu u taagnaa sida wax weey horumarin lahaa gobolka aqoontiisa iyo guud ahaan dugsigu sidoo kale wuxuu bixiyaa luqadaha kala duwan wax weey Ingiriisiga, Carabiga iyo ay ka mid yihiin ilaa Soomaaliga xataa laga bixiyo dugsiga waa arkaysan kale boorkiisa guud ahaan wada khidmad filayaa aad oo la socotaan wuxuu bixiyaa waxbarashada dadka waaweyn ee loo yaqaan informal education-ka ama waxbarashada dadban sidoo kale waxa uu dugsigani inta uu soo taagnaa ama inta uu soo taxnaa uu soo saaray ardayda kala duwan isagoo marba heer kala duwan ay wax weeyaan ahayd markii ugu horeysay dugsiga la furay waxa lagu furay 5 arday oo kaliya maantana waxa ka baxay arday ka badan 675 arday ay ka baxay sidoo kale waxaan leenahay hambalyo macallimiinta kala duwan ee dugsiga ardayda soo saareen geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaybo kamid ah ardayda dhameysatay kulliyadaha waxbarasho ee dugsiga Jazeera waxaanay dhamaantoodba mahadcelin u soo jeediyeen maamulka iyo macallimiinta dugsiga dhammaan macallimiinta aadka u qaaliga hadhigan dhanka saxaafadda hadhigan dhanka caafimaadka hadhigan dhanka Ingiriiska aad u mahadsantiin maan leeyahay mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaadba dhammaan ardayda ka qalin jebinaysa dugsiga Al-Jazeera College dufcadii shanaad waxbarashadu waa muraayad aqoontuna muunad weeye inaad arday ka maqnaato maadka 10 kuma ku dhaafo aday ku muroorisaay macaaga inaad mas'uulka hadhow maamulo u noqotid hacun maan doori gaara xubno kamid ah ka soo qaybgalayaashii madasha oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay ardayda dugsiga Jazeera arday ka socota dugsiyada magaalada Burco Al-Jazeera waxaan leeyahay hambalyo inantaan wax baranaya inanka wax baran wallahi nolol duliye bay ku noolaanayaan dariiqul cisi waxa ku noolaanayeen qof wax bartay runtii waxaan ugu horeyn u ducaynaynaa macallimiinta dadaalka ay geliyeen ardayda waxaan leenahay Ilaahay ka jahaysiiyo dadaalka ay geliseen dadkiina marka labaad waxaan hambalyeeynaa dhammaan qalin jabiyaasha caawa ardayda qalin jabisay maanta xafladooda joogta waan u ducaynaynaa ka macallin ahaan markastana waan u ducaynaayo ardayda qalin jabinaysana soo martaa anagu waxaanu iska nahay warshada wax soo saar haddaan macallimiinta nahay caawa waxa marti waa ardayda uu soo saaray marxaati ka waqtigu waa kooban yahay wasaaradda waxbarashada lafteeda anagu waan ka mid nahay laakiin wasaaradda waxbarashadu waxay u baahan tahay lafteedu dardaaran waxaan leenahay wasaaradda waxbarashadu maxalka Jazeera waa aragtaa wax soo saarkiisa waa aragtaa gobolka Togdheer wasaaradda waxbarashadu ha ka muuqato arin badan oo ay ka qalin jabinayaan waxa weey arday kala duwan dufcadoodu haday noqoto dhinaca trainingska ama wax weey mataqaanay technicalka amba waxa weey dhinaca language-ka ama luqadaha gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Sareebaan Doob oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay ardayda iyo maamulka dugsiga Al-Jazeera International College qalin jabinaysaana maanta waa qalin qaadateen inaad waxbarashada hore u sii wadaan oo saddexda dacfadooda kala ah sida la sheegay caafimaadka, saxaafadda iyo luqadda intuba waa muhiim ah inay bulshadeena ku soo korodho si loo helo dad dhalinyaro ah oo xirfadooda ku shaqeyn kara gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay kulliyadaha kala duwan ee dugsiga Al-Jazeera Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker telefishinka caalamiga Ariel TV Burco.